aragtida guud ee bulshadana haddii la soo hadal qaado meelahaas intooda badan waa diidan yihiin adduunka waa laga tegayaa adduunkan waa laga tegayaa fursad baad haysataa dahabiya maanta ilaahay wuxuu ka dhigay ama maanta ilaahay madaxweynaha wuxuu ka dhigay yani muxuu ahay maanta qof ka talin kara oo go'aamin kara oo diidi kara gaaladu waxay doonayso وعبدالمالك موسى علدون صحفي هراء ودغدغاء arrimaha bulshada afkiisa ayaa xidhay kadib toddobaadyo uu eedeymo u jeedinayay xarunta dhaqanka ee magaalada Hargeysa maalmihii u dambeeyayna eedeymo kuwaasi lamada uu u jeediyay jaamacad ku taala duleedka magaalada Hargeysa booliska Soomaaliland ayaa xabsiga u taxaabay waxa laga soo qabtay magaalada Burco sida la sheegay ilaa haddana ma cadda xarigiisa sababta iyo waliba in waaran maxkamadeed lagu soo qabtay hase yeeshee ninkan ayaa in badan daba socday oo qoraallo kala duwan iyo waliba muuqaallo badan ka baahiyay xarunta dhaqanka ee magaalada Hargeysa iyadoo oo dadka u arkayeen arrintaasi inay tahay dagaal diblomaasiyadeed oo markaasi xaruntaasi lagula dagaalamayo halka isaga iyo kooxaha la jaalka ahina ay ku eedeynayaan xaruntaasi in ay hoy u tahay waxa ay ku tilmaameen faafinta dhaqan xumo liddi ku ah dhaqanka wanaagsan ee Soomaalida ama dhaqanka wanaagsan ee bulshada Soomaaliland iyo waliba shariicada Islaamka haddaba hadalkii u dambeeyay ee warbaahinta mariyay ayaa waxa uu maalintii u dambeysay kaga hadlay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan erey kooban ka oranayaa eragii madaxweynaha Soomaaliland maalintii shalay uu ka jeediyay jaamacadda raacsan dugsiga Abaarso ee magaceeda la yiraahdo Barwaaqo shalay oo ay taariikhdu ahayd 8 Muharram 1443 Hijriya kuna beegneed 16 bisha 8aad 2021 madaxweynuhu hadalkiisaas ama eraygiisaas waxa uu si weyn u difaacayay dugsiga Abaarso iyo jaamacaddiisa isla markaana waxa uu weerar ku qaaday dadkii eedeeyay dugsiga qodobo kala duwan ayuu ka hadlay waxa aan doonayaa qaybo kamid ah qodobadiisaas ama qaar kamid ah qodobadiisaas inaan dul istaago waxa aan ku bilaabayaa baarista uu sameeyay madaxweynuhu waxa uu sheegay kadib markii uu maqlay hadalhaynta ama uu arkay hadalhaynta ka jirta dugsiga Abaarso ayaa waxa uu sheegay inuu lugihiisa ku tagay keligii si uu soo ogaado waxa halka ka socda waxaan uu sheegay inay u soo baxday natiijo ah in halkaasi ay tahay meel wanaagsan oo lagu hayo wax u dana ummadda iyo islaamkaba natiijadaas uga soo baxday haddaba natiijada uga soo baxday waxa ama baarista lafteeda ayaa waxa aynu amaan iska weydiinaynaa madaxweynuhu marka uu dalka joogo gooba uu dugsi booqanaya tusaale ahaan oo kale bal qiyaasa intuu joogi karaa muddo kooban badh ilaa saacad baa laga yaabaa inuu joogo dugsigaas muddadaa yare kooban muxuu ku ogaan karaa muxuu xog ku ogaan karaa waxaa la sheegaya ee tirada badan sidee buu ku ogaan karaa muddada kooban taasi waa taas qodobka labaadna waxa laga sheegay dugsigu de ma aha wax la taaban karo oo saa loo gacanta loogu taaban karo ama la arki karo badankood oo ma aha inuu hadduu meesha ugu tago wixii la sheegay inuu arkayo sidii maxaa khamri xashiishad dad wax leynaya hub saas ma meesha waxa lagu hayaaba waxay u badan yihiin waxaan la taaban karin waa barbaarin waa afkaar baa lagu fudinaya ardayda afkaar baa lagu shubaya waxa weeye sanawaad soconaysa sidee baad ku ogaan kartaa marka yani ugu badnaan saacad saa lagu ogaan karaa teeda laba marka loo yimaado maxay ku sheegayaan maxay ku sheegi lahaayeen ay kaaga warrami lahaayeen wixii lagu eedanayay may ku sheegayaan taban de waxa weeye jawaabtu waxa weeye waa maya haddii uu madaxweynuhu uu doonayo inuu xogta ogaado sida uu sheegay waxay ahayd inuu guddi madax bannaan oo lagu kalsoon yahay loo saaro oo ummaddu ay raalli ku tahay oo ay culimaduna kow ka yihiin guddida xubna ka yihiin iyaga loo soo ogaan lahaa iyaga ummadda u sheegi lahaa iyagaana ku soo noqon lahaa madaxweynaha oo u sheegi lahaa waxa halka ka jira qodobka labaad ee uu ka hadlay madaxweynuhu waxa uu yani la dhacsanaa arrin uu sheegay inay maalgelin weyn ay sameeyeen qolada xaruntaasi ama dugsigaasi oo waxa uu sheegay arday dabadda loo diray oo ku dhow 300 oo arday oo ka baxay dugsiga Abaarso oo lagu maalgeliyay in ka badan 30 milyan oo dollar oo uga jeedo madaxweynuhu maxaa lacag badan ayaa maxaa lagu maalgeliyay waaye kaba soo qaad ba lacag baa lagu maalgeliyay tira badan
lacagta qoladii bixisay ma bilaa ujeedda u bixisay ujeedda maxay ayay ka lahaayeen ujeedda ma laha miya yani waxa weeye ma jacaylayna jecel yihiin bay ayay muxuu ahaayey dugsiga halkan uga sameeyeen oo ardaydeena wax u bareen oo ay dabadaha u direen ma jacayl baa miyay naga heleen miyayna u naxariisteen dadkani waxaynu kala nahay kala fikir kala diin waa yani ninka intuu ka yimi cirifka adduunka yani muxuu ahaayey igu yimi halkan dhulkan ujeedadiisu waa maxay dabcan ujeedduu leeyahay ujeeddada uu leeyahayna halkan aanu ka sheegaynaa ujeeddadoodu waxa weeye inay soo saaraan dad iyaga la mida la fikira ka agdhow oo ay ku shubtaan kana saaraan wixii hore si ay ugu fushadaan mashaariicda ay doonayaan dad iyaga ah oo muwaaliin u ah oo u daacada oo ay tababareen sanawaad badan tababareen ay doonayaan soo saaraan waxay doonayaan oo yani waxay ugu yeedhan hal door iyo labeentii bulshada dadkii horkacayay hogaankii horkacayay bay doonayaan inay sameeyaan oo siyaasad ahaan u horkacaya waxbarasho ahaan u horkacaya caafimaad ahaan qaybtii dumarka qaybtii dhalinyarada manaaxil xayaa dhinacyada nolosha oo dhan waxay doonayaan inay noo soo saaraan dadyow inala magaca inala midab inala dal laakiin maskaxdu aanay maskaxdeenni ahayn qalbiguna aanu qalbigeenni ahayn dhaatada iyo macluumaadka iyo fikirka iyo ideolojiyada ku jirta aanay teenni ahayn aynu rabnay ay tahay ninka samaystay dhaqankiisa iyo fikirkiisa iyo wuxuu doonayo ayay doonayaan inoo soo saaraan teeda labaad nin si cad u doonaya inuu soo saaro hogaamiyeyaal sidee baynu ugu ogolaanay dalkeenna inuu qaabkan oo kale uga shaqeeyo oo u soo saaro hogaamiyaha iyay sameynaya aniga hogaamiyaha iyay sameynaya ma nin gaala aniga hogaamiye wanaagsan ii sameynaya ma nin aan kala diinnahay ayaa hogaamiye wanaagsan ii sameynaya wuxuu ii sameynayaa mid la aragtiya buu sameynayaa mid muxuu ahaayey la fikra buu sameynayaa mid aniga muxuu ahaayey muuqaal ahaan iyag laakiin aan yani wax aan doonayo aan doonayn buu muxuu ahaayey soo saaraya xarumaha waxbarashadu ee ay fartu ku godan tahay iyo xarumaha dhaqanka ee ay fartu ku godan tahay xarumahaasi waxay keeneen waynu runta isu sheegnaa yani waxa weeye wax lala dhaco maaha wax la ammaanana maaha wax laga qajilo weeye wax laga xishoodo weeye in maanta kuwaa lala safto dadkaasi waxay keeneen bulshada ugu guracan adduunka bulshada aan samayn xitaa waxa uu sameeyo xayawaanku waxay keeneen labka wax ka daya ama hungureeya iyo dhadiga wax ka daya ama hungureeya dadka noocaasa bay inoo keeneen dadkeennii bay ku sii dhex daayeen oo ay uga dhigeen tusaale wanaagsan intaasaa ku fillayd oo ay ahayd madaxweynuhuna inuu xisaabta ku darsado intaasaa ku fillayd inay tahay meeshaasi meelo aan khayr lahayn meelo aan wanaag soo wadin meelo aan wax ummadda islaamka iyo muslimiinta u dana aan lagu hayn xarumahaas baas ee isugu jira waxbarashada iyo dhaqanka waxaa ka digay oo ummadda uga digay xumaantooda iyo dhibta ay leeyihiin culimmadii baa ka digtay guddidii wanaag fariistaa ka digtay waxgaradkii baa ka digay intuba way ka digeenoo meeshaas muxuu ahaayey dowladdana way kula dardaarmeen oo ummadda ka qabta aragtida guud ee bulshadana haddii lasoo hadal qaado meelahaas intooda badani waa diidan yihiin adduunkan waa laga tegayaa adduunkan waa laga tegayaa fursad baad haysataa dahabiya maanta ilaahay wuxuu kaa dhigay ama maanta ilaahay madaxweynaha wuxuu ka dhigay yani muxuu ahaayey maanta qof ka talin kara oo go'aamin kara oo diidi kara gaalada waxay doonayso oo ilaahay raali gelin kara marka maanta fursad baad haysataaye war ummaddan diinta islaamka ku dhaqo war wixii diinta islaamka la dagaalamaya ummaddan ka qabo war la garan maayo goorta uu geeridu imanaysee way soo dhowaatay inugu soo wada dhowaatay khaatimo wanaagsan adduunka aynu kaga tagno weliba madaxweynuhu khaatimo wanaagsan ha kaga tago ummaddan khayr ha kaga tago ku xidhnow gobonimo news mar kasta iyo meel kasta nala soco nagu soo biir haddii aad cusub tahay sabskraib saar ula gambaleelka